halka daawadayaal hortiina ka muuqata waa howlka dowladda hoose ee magaalada Burco waxaana ay dadweynaha reer Burco kala kulmeen subaxnimadii saaka dhacdo fajac iyo la yaab leh oo la iska weydiinayay tan iyo duhurnimada maanta magaalada Burco ilaa si hadda lama garanayo sababta dhalisay arrintan iyadoo sida ay noo xaqiijiyeen dadweynaha ka agdhow madaxda degmada Burco iyo xildhibaanada golaha deegaanku in aysan jirin wax dhibaato ah oo soo food saaray waxna gudaha sida hortiina ka muuqata dhulka la simay guriga dowladda hoose ama howlka weyn ee dowladda hoose looga arrimin jiray maray xildhibaanada golaha deegaanka magaalada Burco warar xogagaal ah siiyeen waxa ay noo xaqiijiyeen in sagaalkii habeenimo ee xalay abaara waqtigaasi ay ahayd markii uu dumay balse midhayar ka hor ay ku beegnayd markii halkaasi ay ku sugnaayeen qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka iyo waliba dad danyaro oo laga rabayay qaar ka mid ah gudaha dowladda loola rabayay meel ku dhow xabalaha dahabshiil ee magaalada Burco balse dhacdada la yaab kale ayaan ilaa hadda la garanaynin sababta keentay waxaana isweydiinaya dadweynaha ku dhaqan magaalada Burco oo hadalhaynta ugu badan ee maanta ay ahayd arrintani qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka magaalada Burco ayaa sheegay inay tahay digniina tusinaysana awoodaha Ilaahay waxaana hadaladoodii ka mid ah xildhibaanadii warbaahinta la hadlay sida tan howlka waxa dhisay hay'adda la yiraahdo UN Habitat ayaa dhistay waxaana injineer ka ahaa nin Talyaaniga oo dhowristay jira oo Paulo la yiraahdo oo international civil engineer dhismihiisu muu lahayn saluug laakiinse waxaan u dhisnaa muddo imika ilaa 9 sanadood 9 sanadoodna waa la isticmaalay waxa mucjiso oo la yaab leh biyo kuma fooraa oo muudagin meesha dilaac qaraxay oo dumiska koos kareeya kuma oolin dabayl kuma dhicin roob kuma diin wax allaaliyo wax kale oo meesha taabtay aan garanayno marka aan waxaan u arkaa oo inay tahay mucjisooyin kamida waxa dibay waynu ag taaganahay howlkii dowladda hoose wuxuu dibay xilli aan dabayl jirin xilli aan roob jirin Burco keligii ba ka dumay waa wax isku tus waa digniina loo digayo maamulka wax gacanta ku haya anagu waxba gacanta ku hayno wuxuu baan golad dusha ka joogay waradika digniintii u dambeysay leedisiye wala iska ilaaliya waliba waxa la xaasiga maayirka masaajid baa tujin jirtay waadii markaad meesha bilowdana yiri waxaan xoolaha umad weygin nabad galisa balwata lagu daba socday imka ku xigay dunyada aday wadanaadu ba xigay bal iska ilaali baan ku leenahay sida wuxuu dhaceen cidina ma duwi karto oo howlku uu iska dubay ilaahay xaqiisa ayaa waa wax weeye ilaahay baa ugu talagalay iyo nabida noo dhistay howlka marka maaha quality-giisuna maayirka magaalada Burco Ustaad Maxamed Yuusuf Muraad ayaa isagu kaga dareen celiyay dareen caralay markii ay su'aalaha weydiiyeen warbaahintu howlka shirka dowladda hoose inuu dumay sagaalkii habeen hore dadku dhimi waa og yahay وانا ده شيل حق إلهي سبحانه وتعالى كيمي فرسمدي سأنا جور ما هينو مقاب حنب الله دسي أنا جور ما هينتها وايو أنا وقت يجي لما دسينه وقت يجي محمود دجلا بالله دسي يعني عدي مركز شوكتي يعدي مركز لدسي قاب كل الله دسي أيا لو يديني وريه سكرية عبد الرحمن إبراهيم وربعين تمدح بنانه HP مقالة برعاية حرمت قبل